محمد يوسف وكم إذا مرتدين وقتي من مقالة يستقلوا أهلا سيدك القراء يولي بأبوان سجن قصر كيك هو حكسي سجينا الله يرحمه مبارك ويسي فريم لا قصر ما حرينا نريد تقولي ويلوسي قدمينه كل ذا waxayna helay abwaan isku darsaday tii hore ee annagu bariga oo yareeray suuqa soo gaaray runtii waxaan jeclay inaan buugga qoray iyo aan aad ugu sii dheeraan waay buug kaliya ayaa halkan yaala waana buugga la yidhaahdo socdaalkii dheeraa waa laga yaabaa ninka uu ku saabsan yahay oo la yidhaahdo guuleed inuu halkan degan yahay oo joogo maanta Youtube يعني دافن مقعي واسيل أحمد محمد يوسف كل شيء مقالة الشيخ وقت الشيخ ما يو كل ذا وهي شيء هو وين بعد لكن سيدا كلام ما شاء الله كل ذا اللي بدأوا تري الحمد لله رب العالمين محمد سو سيدي سوليش كوحوي حاس نوار هاي عرور أنا يعني كاسي مروي أنا دولي خبصنا أنا حاس فانا هاي صدق حبلوت بان لي هاي ما شاء الله waxaan jecelahay runtii aan weyn meel yar waxba ka duwan aan looga faa'iideeyo oo ah suugaan baa inta badan ka hadlaynay gabayo maxamed tiriyay mubarak ku tiriyay soo gabayo tiriyay waliba wuxuu dhex galay runtii mucdii xagga suugaanta uu dhex galay haddaba suugaanay maxaa tahay waxaan jecelahay halka baad maxamed aan uga caawiyo waxay ugu jiraan aadayno waxay noo sawirantay wax la yiraahdo gabay ama maanse guud baa inuu la macna waxa la yiraahdo maansada waxay noo sawirma suugaan marka la yiraahdo miyigii iyo wax inaga fog waxaan jecelahay maanta inaan la wadaago reer Youtube suugaantu inay ku soo ururayso meel aan ahayn miyigii ee ay xaafadda Soomaaliya bibliotheek maktabadani waa suugaanta way suugaanta haddii markiiba u sawirano suugaan marka la yiraahdo inay tahay wax inaga fog ama wax hore oo gabayadii hore la tiri jiray haddii uu qaadano waxa laga yaabaa in xiisuu ka luma dhalinyarada halkan ku dhalatay ama sidoo kale ku dhalin gaadhay marka kullayba waxaynu u baahanay inuu fahanno suugaanay maxaa tahay in yarba markaa inooga soo diyaariyay suugaantu sideedaba inkastoo siyaabo kale la sheego waxa loo badan yahay oo la yiraahdo waxa ay u kala baxdaa wax la yiraahdo tix iyo tiraab waxa laga yaabaa kullayba ereygu looma cusbay badan way maqashay laakiin maxay kala yihiin tixdu waa waxa gabayga la tirnay ma soo dhan hees hawleed waxa la wixii khaafiyad leh ama magaranaysa xaraf raac gabay ha noqoto geeraar ha noqoto magaranaysa maxad hees ha noqoto waa tix weeyaan tiraabtu way ka duwan tahay waana taa aan doonayay inaynu fahanno tiraabtu waa tan ka buuxda maktabadaha taalla waa sheekooyinka lama awaalo ee la qoro sida imka sheekada maxamed ka sheekeynayay buuggii la oran jiray dumar talaba laga dayay waa mufakkir baa fikray qoraaba fikray qaabku uga hadli lahaa markii dawladdu wuxuu idinka yar sheekayay si yar oo sabeebo uu idin sheegay oo ahayd in marti ay timi ay soo martiday reer waxa aan jeclay in halkaas sii jiciyo ujeedadu waxay ahayd waqtiga gumaysigu yimi waa laga yaabaa in badan inay fahmin waqtigu gumaysigu yimi dhulka Soomaalidu degto dadku waxay u arkayeen marti ingiriis ha noqdo faransiis ha noqdo talyaani ha noqdo martidii way suuriyeen waxbay siiyeen laakiin sidii martida lagu yaqaanay way noqon weydii waaba kici waayeen dabadeed waxay noqotay in afka loo toolay goor ma tagaysaan iyo xagaa tagay hal loo socday waa halkan waa sarbeebta sida ku jirta buugga uu qoray maxamed oo kale haddaba tixdu iyadu waa taa gabayga ay magaranaysaa maxadayaan ay markay maqlayna macnaha ha noqoto gabay ama ha noqoto geeraar waa waxay hadba markaa ku kala duwan tiraabtu inta badan tiraabtu ma aha qasab in sideedii loo tiriyo gabayga uu tiriyay mubarak ama maxamed waa inaan u tiriyaa sidoo ahaa haddaan wax ka bedelo waa qalad laakiin waa inaan sideedii waa inaan u tiriyaa tiraabta looma baahna in sideedii loo soo celiyo waxay noqonaysaa inaad sheegto nuxurkii sheekadu ay ahayd taasay ku kala duwan tahay waxaan jecelahay haddaba inaan in yar inooga soo qaado maansada oo inta badan waxaynu aad u maqalnaa maanso gabay waxaan odhan karaa gabaygu u malaynaya in abwaanadu igu qabsanayaan waa libaaxa maansada ama waa meesha ugu adag ee laga galo maansada waa gabayga
laga yaabo in buraamburkuba ka adag yahay waa buraamburka waxa gaar u leh haweenka ayaa gaar u leh dad badan waxay isku raacsan yihiin sida caraare ninka caraare la yidhaahdo ee miisaanka wax ka qoray maasada in uu buraamburku ka mid yahay kuwa ugu adag marka laga yaabo in buraamburku ka horeeyay laakiin raggaa isa siiyey in gabaygu yahay gabayga magaranaysa ka ugu adag waxaan jeclahay haddaba gabay maxaa ay ku kala duwan waxaa marka loo leeyahay gabay laga yaabo dhalinyarada inaan kala fahmayn gabay geeraar guurow shirab saar maxay ku kala duwan yihiin habkan ay u dhacayaan ayaa midna raab yahay midna uu yahay maxaa la yidhahdaa dhalinyaradu si fiican u garanaysaa ay qaababkan kala duwan ee loo tiriyo heesaha musiga loo tiriyo ayay u kala dhacayaan iminka aynu soo qaadana gabaygan oo kale ilaahay naxariista ilaah ka waraabiya waxaa tiriyay cabdigahayr in la odhan jiray oo caan ahaa oo aada gabayga caan ugu ahaa in yar baan ka odhanayaa waxa uu yidhi macnaa siduu u dhacayo ma jeclay inaynu isla maqalno waayo gabayay ahaayeen mubaarig iyo maxamed way tirinayeen in gar xidhata ama guudka debigebiga soomaali waa taangayaan dumar ku nacay lama gubaantiye adna geera waxaan kaaga maray gaarigaa tahay si taagtaagan buu u dhacaya qofka macnaha marka la sii dhex galo waxay u baahan tahay macnaha sharaxaad kale oo hoorisi waxyaaba badan baa loo qaybqaybiya laakiin waxaan jeclahay in dhegtiinu ay yara maqasho gabaygu siduu yahay cali cilmi afyare ilaahay naxariista ilaah ka waraabiye ayaa isaguna gabaygan aan in yar ka soo qaatay gabayga laftiisa ayaa qaabab kala duwan ah laakiin taa ma doonayaan inaan sii dhex galo rag badan baa iga aqoon badan taa dhex geli kara laakiin waxaan rabaa bayska hore inaynu isla fahanno cali cilmi afyare gabaygan isna waxa uu leeyahay daruur curatay daad soo rogmaday dilalyada roobka dooxooyin buuxiya xareed lagu dikaynayo diibkiiyo cagaarkiiyo dhulkoo doogu ku ekaaday isna sidii oo kale ayuu dhacay waa gabay haddaba aynu raacsana weliba gabay kale oo isna qaab kale u dhacaya laakiin gabay ah ilaahay naxariistana ka waraabayo waa halkii mubaarigee dee waxaynu in badan baa maanta oo abwaanadii wax badan laga tuujin lahaa runtii way geeriyoodeen waxaana jeclaan lahay faatixada loo maro abshir bacadle ayaa isaguna gabaygan qosob iyo qamuuyo isku xiga qaad oo adigaa le qasad daar ah qowl aan la fudi qaad oo adigaa le cimri kuu qoraa qayb ka lumi qaad oo adigaa leh qalbiga fuqurka iyo quus rageed qaad oo adigaa le ragii qayb jirada joogeen waxana qayaanay ala kulli xaal waxa ka socon gabayga haddaba geeraaro maxaa tahay imika waxaynu isla yar fahamnay gabaygu qaabku u dhacayo geeraarku wuu ka duwan yahay waxaanaad moodaa baryahan dambe inuu sii dhimanayo waxaana anugu u aqaanaa geeraarku inuu yahay kii ugu xaragada badnaa ee fardafuulka marka fardaha iyo dabaaldega marka la samaynayo geeraarka ayaa lagu dabaaldegi jiray waxaan soo qaatay in yar oo ilaahay naxariista ka waraabiye cabdilaahi sultaan timcadde geeraarkiisa caanka ahaa waxaan ka soo qaatay in yar laakiin waxaan rabaa siduu u dhacay inaynu isla yar aragno anigoo sabiunahoo way ka duwantay sidii hore anigoo sabiunahoo sita leeb yaqaanso siigadoon isku maqaasiyo saba reerka fogaanino laygu aaminin soofiyo saaca maanta aan joogo gabaygu waygu sugnaaye haddii aan sartariigo way ka duwantay waa degdeg baa ku jira gaagaaban u gaagaabayi haddii aan sarsariigo ama aan sarmaseeja amaba aan sixi waaye ama aan ka sarguuro amaba laygu sarugo soomaalida maqlaysa saruga hadhow ukasii afeef hadhow taasina waa taa saar baa jira waxaa jira runtii guuro baa jira shira baa jira way fara badan yihiin saarka oo kale runtii nin ciise kaarshe la odhan jiray ayaa caan ku ahaa dhowr qof oo dambe oo tiriyana waan arkay waxaanu kaga qurux badan yahay waa la isla jiibiyaa oo haweenbaa la jiibin jiro sina qurux badan bay u dhacdaa waxaan ka soo qaaday looxa lagu dhigaa higaad waa la akriyaa hagaag waa loo socdaa hor waa laga yaaba si qaabka qurux badan u akriya laakiin waa qaab gooniya soo maaha hagaag waa loo socdaa hor waa loo sii hoydaa hadal waa la hindisaa hadii kale waxaa lahaa marka haahey ayay odhan jireen haweenku idinku malaa in badan bayn maqalo iyada ma oranaysaa hadii kale waxaan lahaa marka runtiida wuxuu sharxaya iyo laakiin ujeedadaydu waxa weeye macnaa habka u dhacayso culays bay hooyadu ka hadlaya hooyo lafteeda waa arrin qaadaya oo runtii aada iyo aada inoo taabanaya inta badan maqil raban malanaya laakiinse waa arrin
qof baynu u qiraa laakiin si guud inaynu u qirro oo hooyadu waa lama huraan tallaabtay la hakato xanuun bay u hingatay hooyadu waa lama huraan saa kula qaabkaas u dhacaya waa qaab magaranaysaa haaheydaas ayuu isna u dhacayaa ujeeddadaydu suugaanta waa isku soo duuduubayaa oo ragga suugaanyahankii hadday sii dhex galaan sida uu mubaariba inoogu tilmaamayay sida sugan iyo way fara badantay qaabkeedu iyo waxay u baahan tahay in loo barto hab fara badan laakiin anigu waxaan yaro jeclaystay dhalinyaradu in aanay u fahmin un wax aan la kari karin ee waa wax la baran karo una baahan dadkeena weliba qolbaa joogaa inay bartaan baarhaan wax badan oo aan u baahnayn in lasoo qaatana ha iska qubaan laakiin wixii ay laga qaadan karee quruxda badan leh in laga qaato oo aan loo eegin hebel oo ayuunbaa gebi jiray suugaani ma aha suugaani way ka ballaaranta suugaani library-ga bay gelaysaa baan macnaha idinka bilaabay hadalka waxay gelaysaa waxa buug yaalla ee halkaa camiran ayay suugaantu soo gelaysaa dhinaca kale waxyaaba badan inagu aynu ku faarayno maahmaahdeenna gaarkaa sarbeebta halkudhega hawraarta way fara badan yihin suugaantana ereyga siduu tilmaamay mubaarak waxa weeyaan erey runtii berigii hore dee iskuullada markii lagu dhigi jiray suugaan baa la odhan jiray laakiin suugaan ereygan waa jiray afka soomaaliga ka mid ah qaabab kala duwan oo qurux badanna loo yaqaano oo runtii macnaha markan dambe un loo qaatay inay suugaantu tahay afka halka ugu quruxda badan gabayo uu ku jirayna runtii maxamed baa diiwaanka inoogu hayo oo suugaanta gabay halka haddaad ii yar saxdo gabay runtii ka hadlayay macnaa erey ahaan suugaanta gabay maalinta sadar ka sheegayo abidkii masalan seeriye waan susumiyahay macnaa ninkaas isagu suugaantii buu ka hadlaya toos u tilmaamaya waana waqti hore ku sagaal boqol shan iyo soddon wana dhowr iyo soddon suugaan biblioteekna markaa kusoo koobay suugaani inay biblioteeka taallo qoon literature waynu naqaanaa wax alle waxa buug sheekaa mala awaala la alifay ama ha noqoto mid la alifay ama ha noqoto mid la alifay laakiin run ku salaysan waa suugaan ereygaas suugaan waxaan rabaa inaynu ku siligno biblioteeka waxa yaalla iyo aan ka ahayn wixii aqooni waa gooni laakiin waxa kale ee yaalla xitaa waxa soo gelaya waxyaabahan artiska layaa soo gelaya wax badan baa soo gelaya suugaantu waa taa inoo taalla biblioteeka waa taa inoo taalla ma aha mid aynu ka sugayno miyigii iyo waxaa laga sugaya dhalinyarada halkan joogtaa inay iyagu ina baraan oo inooga sheekeeyaan ay baaraan weliba isbarbardhigga suugaamaha kale suugaan dhexda kii gabayay maaha in laga sugo maaha waa fariinta maanta jecel iyo maaha waa dhalinyaradan baa laga sugayaa inay iyagu ina baraan taa waxaa jeclay waxba inaan ku dheeraan maktabadda iyo magaranaysa dardaarankayagana aan halkaa aan ku sii darsaday buugaagtu daalka way buuxaane in la iibsadana mala way sugaya haddii aan idhaahdo gurtana mala waa la iska guran lahaa kolleyga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu